gudoomiyaha xisbiga wadani xildhibaanada xisbiga gudida fulinta golaha dhexe xubnaha xisbiga garabka haweenka golaha wasiirada dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxa ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo inagala soo qayb galay furitaanka xafiiska labaad ee xarunta xisbiga wadani waxa kale oo mahadnaqayaa shirkadda Sagal Jet oo inoo diyaarisay munaasabadan quruxda badan iyo taandhadan mudane madaxweyne mudane gudoomiye waxaan kugu soo dhaweynayaa xarunta labaad xafiiska labaad ee xarunta xisbiga wadani marka ilaahay xoolo kula doonayo Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dadkeedu ku siiya marka ilaahay xisbi 100 sano taliya kula doonayana xaruntan oo kale ku siiya mudane madaxweyne hugaaguna wuu kula baryo tagaa waxaan ku amaanayaa gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan inuu xaruntan fikirkeeda iyo fulinteedaba isagu lahaa haddii aynu xaruntan barbar dhigno xisbiga kulmiye xaruntiisa aan inaga fogeyn oo 23 sano ay deganaayeen waa xarun yar oo halkan agteena ku taalo dhinac bay u galaan gawaadhida marka santraboolku go'o dawaabeeye baa garanayee markuu gaadhi santraboolku go'o ay wadada kaaga hor yimaado inta horena meel bay maraysaa xagga dambena meel kale maraysaa marka talada dalkana 14 sano qaloocaasay ku wadeen madaxweynaha Soomaaliland waxaan uga mahadnaqayaa aasaasaha xisbiga wadani inuu toosiyay in badan toosiyay inta hadhayna toosin doona haddii ilaahay ka dhigo mudane madaxweyne dabciga dimuqraadiga ah bay tahay in mabaadii la isku raaco xisbiga wadani madaxweynaha iyo gudoomiyahaba waxaan ka hayaa xisbiga wadani lama kala lahe waa loo soo kala horeeyay looma kala laha sida loo soo kala horeeyay waxa tusaale cad waa aniga waqtigii aan imi oo reer wadani garanayaan iyo maanta halkaan ka joogo mudane madaxweyne hanka dhalinyarada Soomaaliland ee hogaaminta dalku sare u kacay waxay danaynayaan xisbiga weyn ee talada haya ee wadani waana inaynu dhiiri gelino laga soo bilaabo 2002 markii nidaamka axsaabta badan wadankeenu qaatay dalku wuxuu lahaa 2 xisbi oo waaweyn iyo xisbi yar laga bilaabo 2024 dalku wuxuu leeyahay hal xisbi oo weyn iyo 2 xisbi oo yaryar xisbiga weyn waa xisbiga talada haya wadani labada xisbi ee yaryarina waa kulmiye iyo ka hoo soo dhaweynayna salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh